أو المشرعين قلها مستقبلك مسؤولين قلياشا دولة هير فدرالي هير ستيت دمان dadka halka ku qoran dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii farxad weyn bay ii tahay caawa kulankan dadka jooga inaan la qaybso. horta annagana soo dhaweyn maayo murtimo nihin dalkeenni iyo dadkeenni iyo caasimadeenni baan jiro, laakiin markaan meesha dexmad marayo waxaan fiirinayay 2021 halkula joogi jirin xildhibaanadii hooyuha tirada badnaa meesha nagu jirjiriga meeshii aanan baan garan waayay. marka waxaan isdiray malaha xamada meesha dadka iga kala goynayo markaan si kale u fiirin. horta fariintayda waxay ku socotaa saaxiibada halka fadhiya degmo kuma jiraan waa naga jooga, laakiin fariintana waxay ku socotaa dadka damaankan waa inagaan dambe sida gaarka u sheegtay. dalka waxaan u yimid horta mamnuucadiisa inaan ka shaqeyno. xabarna in laga kala goyn baan rabnaa inaan ka shaqeyno haddii lahayd kooxda yar oo arrimahaas ka shaqaynaysa. horta waxaa ogaataan xabar idiniga tegi mayso waa lagu qabsanaya haddii lahaydno. dalkan waa la wada leeyahay midnimadiisana qof kasta mas-uuliyad baa ka saaran. hadallada xanta ah anuu kaga shaqayn karno meelaha looga sheego halka ka ku yimaadna inaa dalkan weji u yeesho sidii hore la yeeli jiray saase. waana arkaynaa dhammaan dadka waxgaradka ay halka jooga, xildhibaanada halka jooga si gaara lagu hambalyeynaya. ragga iga maqanna war halkay ku dambaynaysaa hore u soo gaaraan ilaahay bannaanka ha istaagnin. waxa hadda ka socda aadamadoodada ku yeela baarlamaanka shaqadii loo dirsaday ma aha. shaqaha loo dirsan baa halkaa laga hayaa. inta difaacdeen waa winaan celinayaa. hadda taana waan isuguda nidaamno hareerahan ka wada qabanaynaa. bulshada kale cabursanayso lahayd malaha waa layska kala irdhoobina waxaay intay iska dhaafaan siday ahaan jirtay. cabdiqaydiid baa habka ka hadlay runtii hadalla waftar uu ka sheegay odannimada isagaan u goyeyna, laakiin marakan waxa weeye odannimo keliya ma rabtay xisaab dhanbay rabtaa. ma garat in la wada hadlo oo dalkan af loo saaro u baahan yahay. madaxda hadda joogta filla soomaaliya iyo dadka ka agdhow waxay dhahayeen malaha madaxdu ma imaanayso niiga tegima halkaan in la joogaya haddii lahayd. runtana waa laysugu imaanayaa. dalkaana waa laga difaacayaa midnimadiisa iyo horumarkiisa. marka waxaan jeclaan lahaa insha allah shirkaas ka hordhici maayo. runtii hadalladan xataa inaan dhaamarowe laakiin marka ay dhaha dadka fiirfiiriyaan waxaan isiri dhowr qof baa ii muuqata amiintuu sooyiyo dumaadiidi cabdiqitaar baa ii muuqata. waagi hore halka inta kale waa ku farad badnaan jiray markii horeto. marka halkaas barnaamij baa iiga muuqatay. barnaamijkaas inaan sheegana waa jeclahay. insha allah barnaamij badanna way imaan doonaan. dalkan midkii ah ka tirahdeen in kale ku duri maayo. samato bixin buu u baahan yahay, mustaqbal fiican buu u baahan yahay, in xeerarka iyo shuruucda la dhigto la ilaaliyo u baahan yihiin, in dadku runtii ay runtaa baaraan oo dalkeenna xaalad meesha uu marayo. ma rabo inaan hadda ku celceliyo cid walba way ogsoonta. dalkan waxa keliyu ka dhigan in doorasho u galo. waxa kaloo la hayo waa iska hadal. dastuur dalkan dastuurkii 2022 ugu heshiiyaa wax kasta oo la malmalooqo oo loo midasmayn gacmahan buu dadka ka daalinaysaa wakhtiga. waxaan oran lahaa arrintaas wax ka duwan aan aadno. annaga waxaa dhadhiraa midnimada dalka inaan ilaalino, wadajirkiisa inaan ilaalino, inaan halka u nimaanno heshiis dhab ah oo dalka anfacaya. heshiisku macnihiisa maaha inaan runta la sheegin. waxa khaldan waa la sheegi doonaa haddii la haydno. waxaa loo yimid oo wakhtiga loo gelinayaa waa arrintaas. marka hadalka inaan ku sii rabto ma rabo. waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya annagoo ixtiraamayna mansabka iyo maamuuska uu leeyahay hoggaamintiisa waa dhaliilsanna.
laakiin waxaan u baahannahay inaan kala xaajoonno diyaar baanunu safarka dowladda ku wajahaya mid xukuumadda iyo madaxweynuhu ku wajahaya midna bulshada reer muqdisho aan ka miduu ku wajahaya marka anaga midbaa u dhigan doona markaas